بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا لها مسلمين تا ودلك جوغان كاونتي مانديرا كاونتي دادك دمانتود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب أنيقو شيخ محمد عثمان علسو oo kamid ah culamadii Mandera anagoo culamadii oo meeshan isla wada joognaa waxaan idin soo gudbinayaa arrimo badan oo dhulka ku soo cusboonaaday ay jiraan arintaas oo arinta ugu daran ay tahay arin ayax ah ama bahalka haanlaha loo yaqaan oo dhulka ku soo kordhay waxaad ogsoontihiin walaalayaal dhulkeena ilaahay baan ziyaado iyo khayrna weydiisanaynaa sanadkan nicmo aad u fara badan buu ilaahayna siiyey roob badan oo muddo dheer da'ay oo dhib geysanin oo cudur iyo balaayo badan aanan qabin oo nicmo ilaahay intay ahaan karti ah ayaas ilaahayna siiyey subxaanahu wa tacaala daaq badanna soo bixi wixin abaar soo marnay oo dhanna ilaahu siiyey waa nicmo weyn oo ilaahay nicamkiisa kamid ah oo ilaahay inaan ku shukrino ay waajib nagu aheed way kullay shukrigeena yaraaya ay xaalad waxay noqotaba waa iska dhib badan tahay waxaa hadda imaaday bahal ayax la yidhaaha oo biryahanba Soomaaliya dhinacaas ka maqlayseen idaacada ayaa imaaday xuduudana waa soo gaaray waxaad soo gaaray balad al-amiin oo balad xawa dhinaceeda ilaa malkaharey ilaa dhinaca kala dhamasa iyo carabiya meel la siman intaas ayaad soo gaaray bahalkaasna markaad dhulka soo galo oo dhulka ku daga ilaahi nasrigiisa in la helo ma ahin geedahana caleentaas ka diida dhulkana cawskaas ka diida ukumana dhulka hadaas yara qoyin yahay ukumaas ku reebaan waxaas baabi'ina nicmadii faraha badneed oo ilaahay shukrigiisa ay nooga waajibay oo barwaaqada aheedoo sanadkan ilaahay uu nasiyey ayaa hal habeen inuu abaareeyo ayaa la arkaa arrintaas marka waxay nooga baahan tahay ka hortag badan iyo dadaal badan inaan samayno ilaahay baa naga qaban kara cid kale oo naga reebi karta ma lihin abaar haday imaado ilaahay baan baryayna oo roobka baryayna roobkii in nicmadii ilaahay nasiyey wax baabi'inaya way meel walba oo joogna dadka dawlad joogan ama gobolada kala joogan dadka Mandera County joogan dadka Gada joogan dadka la wajeer jiraan ileen culka waa cul soo socday hadaan nahay dhinaca Itoobiya jirna ileen isku dadka oo baanahay waxaan ku kala duwanahay malihin bal horta dhamaanteen meel walba oo joogno tuulo walba waxaan dadka muslimiinta u sheegaynaa in ay ilaahay u tabarrucaan oo ilaahay la barya oo ilaahay inaad cadowgaasna soo gaarsiin ilaahay laga baryo mid labaadna waa in meel walba qayl ay ka dhacda oo dawladda khabar la gaarsiiya dibkaas iyo cadowgaas nagu soo socdo kaas nagu soo socdo oo nasi looga hortaga kara ay jirin in dawladda dadka mas'uuliyiinta ahay odayaalka kalimadooda la maqlahay siyaasiyiinteeni dhammaan inay istaagaan ka hadlaan arintaas sidii ummadda looga qaban lahaa oo dawladda wax u qaban lahayd dawladda waa laga yaabaa wax un inay qaban kartaan oo diyaarado iyo wax lagu buufiyaa hadii lagu buufiyan oo diyaar loo noqdo in laga badbaadana waa dhici karaysaa in ay maaragtay u istaagaan taasna waan codsanaynaa waa codsiga labaad oo codsanaynaa بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيقنا وعبد الله حسين بوله والله يقان الشيخ ورش وحن انتاس أن كدرينا باقة الشيخ وسوي جودنا وحن كدرينا إن أرنت ألف ذيسن ومصيبة ربي حق سكي ماضي وإلهي مارتي أون كيس كالكوسو ديري إن بدن وحن مقليني دين عاد سومالي إيو إن مارتي أتصوّد مقليني أو قايلنايين أو إذا عدها إيك قايلنايين أو دولة سومالي إيك عدسنايين إن مارتي أسو قرمتا إيو انت كالو أود ومارتي أي بدايين لكن إلا هذا كله وحبل لقم قبنين إن وحي كقبتين وكقبتين وسوق جد ببهل كي حد حدود كينيا وسوق جرهايا سيد نول شيء وأنا حدود كولي Mandera ahaan soo ma gelin laakiin wixii ku dhaca dhinacan jiiraanka nale ah anaka waa u nahaaya ayaxaan iyo dhibkiisaan hadda uu wato waxay biri keeni kartaa in dadkii meesha ka daaqay ay guuraan oo cid kala barakiciyaan oo dad kale ay ku guuraan ay dhahan maartay ma idinka meeshiin wax jira oo hadhow qalalaasadi iyo isku dhac qabiil iyo maartay nabadgelyelaan iyo ay ka imaadaan dhici karta marka say taas u dhicin walba hadda in maartay dadaal uu sameeyo oo loo gurmado oo loo kala harin dhinaca Itoobiya day tahay dhinaca Soomaaliya day tahay waa dad reer guuraa xoolo dhaqato labada saddexda dhinac isku nool oo isku dan waaye marka dhulkii dheefta Ilaahay uu nasiiyay barwaaqadii iyo roobka iyo nicmada Ilaahay adnasi kullay Ilaahay waxaan noogu soo diray shukriga aan gudun lahayn ayaan yareynay hadda waxaan noola soo sheegay dhamasa dhinaca Soomaaliya oo dhamasa in xali uu geedo ku dagay geedihii markuu ku dagay kadibna ilaa xali isaaki kulli la tacaalay in la dhaqaajiyo la bixiyo isku day laakiin dhulka inuu soo dagay noo sheegayaan hadda dhulka uu ku dagay mar hadda dhulka ku dagan waxa way laba dhib uu hal mar sameeyni asigoon la kicin karin oo dhulka aan laga qaadi karin kor loo buubin karin ilaa khiyaarkiisa inuu ku buubo maahan in la laayo maahan iyo asaga iyo ma garanaysaa meeshii uu ku dagay ilmo ku dhalaay oo ilmahaas
haddana say Soomaalidu dhihi jirtay ayaxa waa tagaa eelkaas reeba ayaa daran ama ibtilada uu reeba ayaa daran ayaa la dhihi jiray marka dawladana waxaan u baaqaynaa in maaragtay waxay qaban karto ay qabato dawladda nationalka iyo mid county inta ka dhaxaysa diyaaradaha ay ku buufin karaan iyo haday daawo si kale loo sameyn karo iyo wixii lagu qabanayo dawladda kullee waa jira waxay ugu tirigaleen waa un jiraan inay maaragtay howlahaas wax ka qabtaan waan rabnaa si musiibadan Ilaahay uu gaar nooga mariyo noo dhaafiyo marka taas u dhicin marka walaalayaal baryada Ilaahay aan badina macsiyada iyo munkarka xumaanta kale ku dhex jirnana aan daayina fidnada ee qabiilaysiga iyo maaragtay colaadi iyo xumaanta iyo xaqdiga dadka kula dhex jirna aan daayina Ilaahay aan anagoo qalbi furan oo qalbi midaysan Ilaahay aan ku barina dadaalkaasna aan ku darna wa billahi tawfiiq wa jazaakumullahu khayr wa sallallahu ala nabiyina Muhammad